maroodi iyo ay baa isku marrimay eeygi 3 bilood kadib 6 canuga u dhalatay 6 bilood kadibna eeygi 12 canuga u joogtay maroodigi oo sidkiisu maray 18 bilood iyo eeygi ay u joogto ku dhawaad 20 canug ayaa kulmay kadibna eeygi inta uu soo dhawaaday maroodigi wuxuu yiri maroodiyo su'aal ma ku weydiin karaa haa buu yiri kadibna eeygi wuxuu weydiiyay maroodiyo waxaan maqlay inaan isku marrinay oo wali aadan dhaline marumba maroodigan wuxuu ku jawaabay haa oo wali waan sida 18 bilood baan maraya kadibna eegiyo yaabana wuxuu yiri anigu kadib ka 4 daadaan dhalay 20 canugo qaarkood qaan gaareen baan ii joogta ee adigu meeqa canugaad sida maroodigi oo dhool cadeynaya wuxuu yiri waxa jira arrin ay tahay inaad adigu fahamtay eeyow waxaan caloosha ku sido horta ma ahan ee waa maroodi 2 sano kadib ayaan dhali doonaa hal maroodi canuga aan dhali doono marka uu cagta dhigo dhulka ayaa dareemi doona marka uu jidka gudbayana dadka oo dhan ayaa u istaagi doona iyaga oo u eegaya si la yaab leh waxa calooshayda ku jira waa noole lagu mashquuli doono oo weyn haddaba ujeedka sheekada waxa la yiri hallumin kalsoonidaada marka aad aragto dad wixii ay rabeen ku helay si dhaqsi ah oo haquusan ha walwalin oo ku dheh naftaada wuu soo socdaa waqtigeygii wacnaa ha xasdin ha xisaabin hana la barbardhigin naftaada dadka